بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أولا waxaan doonayaa horta inaan mahad ballaaran u soo jeediyo dhammaan shaqaalaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga oo ugu horeeyo injineeraha safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaluushe oo runtii kaalin libaax ama kaalin la taaban kara ka qaatay dhammaan howlihii uu hirgalay xafiiska ganacsiga safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga. runtii xaqiiqatan hadduusan danjiraha aysan ahayn dhammaan shaqaalaha safaaraddu isku duuban maysan hirgasheen mahaddaasna waxaa iska leh dhammaan shaqaalaha safaaradda Soomaaliya ee danjiraha. intaas markaan ugu gudbo waxaan halkaan doonayaa inaan baaqir oo dhiirigelin u diro ummadda Soomaaliyeed ama ganacsatada Soomaaliyeed meel kasta joogaan. sida aad wada ogtihiin ama aad ka warqabtaan xafiiska ganacsiga safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga wuxuu qabtay howlo badan oo runtii aan dhihi karno labada dawladood ama labada dal meeshii xiriirkooda ganacsiga u taagnaa meel maanta ka yara habboon inay taagan tahay haddii ay noqoto in dalkan heshiisyo caalami ah lagu saxiixdo ay wasaaradda ganacsiga Soomaaliya wasaaradda dhaqaalaha dalka Turkiga ay wada saxiixdaan haddii ay noqon lahayd rugta ganacsiga Soomaaliya iyo rugta warshadaha dalka Turkiga ama rugaga ka jira dalka Turkiga inay heshiisyo isfahan ay wada galaan. waxaa ugu dambeeyay heshiiskii ugu dambeeyay hadda wuxuu ahaa inay rugta ganacsiga Soomaaliya ay dalkan heshiis ay ku gasho isfahan ah taasoo anagu aan dadaal ballaaran aan u galno runtii aan dhihi karno wax muuqdo oo la taaban kara ayaan hirgelinay. aan isku soo duubduub waxaan rabaa inaan idhaahdo ganacsatada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan idin soo jeediyo ganacsatada dalka Turkiga runtii waqtigan hadda aan ku jirno waxay diyaar u yihiin maalgashi dhan kasta leh inay ku samaystaan Soomaaliya haddii ay noqon lahayd beeraha haddii ay noqon lahayd kalluunkii haddii ay noqon lahayd xoolihii. waxaa kaloo ugu dambeeyo hadda maalmo ka hor halkaan wafdi uu hogaaminaya xogaha joogtadooda ugu yimid inay la socdeen guddigii ganacsatada liinleyda oo halkaan in liintii Soomaaliya loo soo dhoofiyey iyo haddii ay noqoto sisintoo kale. marka waxaan rabaa inaan idhaahdo mar koowaad iyo mar labaad annagu ka safaarad ahaan oo isku duuban dhammaan tiimka safaaraddu isku duuban diyaar ayay u yihiin inay si dhow idinla shaqeeyaan idinkana waxaan idinka rajaynaynaa sidaas iyo si lamida waana mahadsantihiin.